Waxaan bilaabay barashada digital marketing 3 sano ka hor. Hadda waxaan la shaqeeyaa clients kala duwan aan gacanta ugu hayo xayeysiin. Maanta haddaan maskaxdayda dib u celsho, sidee u baran karaa digital marketing? Muuqaalkan ayaan uga hadli doonaa haddii aan bilow ahay qaabkee ugu fiican aan ku baran karaa digital marketing si aan shaqo uga dhigto. Markii aan arkay su'aalo badan oo walaalaha inooga imaaday iyo rabitaanka badan ee u qabaan barashada digital marketing laakiin ay ku jahwareereen, waxaan go'aansaday inaan muuqaal kan diyaariyo. Haddii aad YouTube ama Google ku qorto digital marketing adigoo raadinayo meesha aad ka bilaabi lahayd ama qaabkii aad u baran lahayd digital marketing, waxaa arkaysaa muuqaalo badan oo dhahayo maalinkii $100 ku sameey adigoo isticmaalaya affiliate marketing, maya email marketing ayaa fiican, SEO ayaa si degdeg ah oo fudud lacag ugu samayn kartaa, maya content marketing ayaa ka sii fiican. Aad ayaad u wareereysaa. Meesha ku ekay kaalay koobkaaga shaaha soo qaado. Stepskan ayaan isla wada maraynaa. Stepka koowaad, jooji shortcut. Soo gaabin lahaw right mindset. Dadka intooda badan waxay bilaabaan barashada digital marketing laakiin maalmo yar kadib way joojiyaan. Sababtaas oo keentay maskaxdooda waxaa ku xooganaa sidee si fudud lacag ugu samayn kartaa shortcut. Sababtoo ah muuqaalo badan aan sax ahayn oo qofka daawaday ayaa ka sii waalay. Maskaxda ka saar lacag, xoogga saar barashada, misna maskaxdaada geli in aad xirfad ka dhigato, rabitaan xooggan la imaawo. Kow waxaad barataa waa maxay digital marketing, sida u shaqeeyaa, qaybihiisa kala duwan, basic conceptska muhiimka u ah digital marketing. Isbuuc ilaa 2 isbuuc waxaad barataa waxyaabaha muhiimka u ah inaad fahanto marketingka sida u shaqeeyo, way businessyo badan oo waaweyn ee u bixinayaan lacag aad u fara badan, way ay xayeysiinta u sameynayaan. Si guud waxaad u fahantaa marketingka iyo sida u qaybsamo. Marka aad basic soo fahanto, waxaad bilowdaa barashada paid media sida Google Ads, taasoo ah mother of digital marketing ama hooyada marketingka ama xayeysiimaha. Waxaad barataa Google Search, Google Display, waxyaabahaas dhan siday u shaqeeyaan soo baro adigoo ka qaadanaya koorso ama haddii noqoto paid ama mid free ah sida Udemy ama website kala duwan oo ajaanib ah ama kuwa Soomaali ah. Waxaad kaloo barataa Facebook Ads, qaybihiisa kala duwan iyo sida u shaqeeyo dhammaan Facebook Ads Pro. Haddii aad u aragtid inuu kaaga muhiimsan yahay Facebook Ads, Google tusaale wadankaaga ama wadanka aad joogto xayeysiimaha ugu badan ee la sameeyo ee tahay Facebook, waad ka hormarin kartaa barashada Google inaad barato Facebook. Markaasoo kale waxaad kow ka dhigan kartaa inaad barato Facebook Ads ama social media sida u shaqeyso, dan markaa aad si fiican u fahanto waxaad u gudbi doontaa Google. Marka intaad si fiican u barato, u soo jeeso waxyaabaha kale ee muhiimka ku ah ama muhiimka u ah digital marketing si aad u noqoto qof diyaarsan. Baro graphic design sida Photoshop ama Canva. Waxaad kaloo barataa website design ama web developing in website-da aad design gareyso sida WordPress. Waayo waxaa muhiim ku ah marka aad sameynayso landing page ama marka aad xayeysiinta sameynaysid, landing page ayaa muhiim ku ah. Si aad landing page u create gareyso, waxaad u baahan tahay inaad xoogaa ka taqaano website design. Marka WordPress koorsooyin inaad qaadato iyadana aad ay muhiim kugu tahay. Stepka saddexaad, qaado certificate. Shahaado ka tarjumayso waxa aad soo baratay. Waxaa ku muhiim inaad qaadato shahaadooyin kala duwan si mustaqbalkaaga digitalka aad meel sare uga gaarto. Laakiin waxaa ka sii muhiimsan inaad shahaado qaadato inaad leedahay experience. Experience-gu wuu ka sii muhiimsan yahay shahaadada. Shahaadooyinka muhiimka ku ah digital marketing inaad ka qaadato waxaa ka mid ah Google Ads sida shahaadada ay bixiso Google Search Certificate ama Google Display Certificate.
qaybta facebookana waxaa muhiim ah Coursera taasoo ay bixiso social media marketing taasoo ka kooban 6 course oo kala duwan oo aad ku baranaysid sida loo sameeyo social media marketing. Social media marketing haddii la dhahane waa Facebook, Instagram iyo wixii la xiriira. Stepka afraad, raadi sida aad practical ku heli lahayd. Waxaad soo baratay digital marketing sida Google Ads ama paid media ayaad soo baratay Google iyo Facebook. Waxaad u baahan tahay practical inaad sameyso. Si free ku shaqeey adigoo internship raadinayo sida friendskaaga ama familygaaga oo businesska iska leh inaad ka raadisid ama aad u bandhigto inaad xayeysiin sameyn kartid aana ka codsatid inaad xayeysiin u sameysid weliba si free ah. waxaad kaloo ka heli kartaa practicalka inaad raadisid digital marketing agency ama haddii wadankaaga ay ku taalo digital marketing agency ama agency sameeya xayeysiimaha qaybtooda internshipka adigoo aqoon badan ka kororsanayo. ama waxaa raadisaa client side wadanka oo kale shirkado badan oo soo koraya ayaa jooga kuwaasoo u baahan in xayeysiin loo sameeyo. u bandhig aqoontaada iyo shahaadooyinkaaga una sheeg inaad u sameynaysid xayeysiin tayo leh. waxaan rajeynayaa muuqaalkan in wax un kuu bidhaamiyey wadadaada digital marketing. waxaan kuu rajeynayaa guul iyo hadafkaaga oo gaarto. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalkeenii maanta. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.